kulanti wacan daawadeen waa mar kale iyo muuqaal xiiso badan oo in badan aan filayo inaad ka heli doontaan isweydiintiisuna idinku badnayd maadaama oo maalmo xiisad iyo xamaasad badan oo kubadda cagta ku jirno. waxaan ku soo qaadan doonaa rajada iyo dhibcaha goboladu kala leeyihiin maadaama aynu gelayno kulamadii saddexaad maalinta Arbacada ee beriya. waxaana wada dheeri doonaa xulalka gobolka Togdheer iyo Gabiley halka Hawd ay la ciyaari doonaan gobolka Saraar. ciyaarta Togdheer iyo Gabiley oo ah tan ugu xamaasada badan ayaa koox kasta ku dagaalami doonta inay lugteeda ku badiso. Togdheer waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay u badin lahayd maadaama oo kulankii ugu dambeeyay laga badiyay. gobolka Sool ayaana groupka iska xaadiriyay. gruupka E waxa ku wada jira afarta gobol ee kala Maroodi Jeex, Hawd, Buuhoodle iyo Saraar waxayna u kala sareeyaan sidan. gobolka Buuhoodle ayaa hogaaminaya gruupkan waxayna leeyihiin 4 dhibcood iyo 4 gool. Hawd ayaa ku xiga oo leh 4 dhibcood iyo 2 gool. halka gobolka Maroodi Jeex rajadiisu liidato kuna xiran tahay badiska kulanka xigta waxayna ay leeyihiin 3 dhibcood iyo 1 gool. Saraar ayaa khasaarisay labadii kulan ee ugu horeeyay waana gobolka kaliya ee ilaa hadda isugu ka haray gruupkan. rajada gruupkan waxay ku xiran tahay kulamada lugta saddexaad ee la ciyaari doono halka gobolka Hawd yahay gobolka ugu rajada fiican maadaama ay la dheeli doonaan Saraar oo awood ahaan liidata waxaana Hawd u baahan tahay kaliya baraaje ama barbardhac. dhanka kale Buuhoodle iyo Maroodi Jeex ayaa iyaguna wada ciyaari doona. gobolka Maroodi Jeex ayaa raadin doona badis halka Buuhoodle iyaguna raadin doonaan barbardhac ama baraaje. sidaas oo ay tahayna labadan gobol ayaa lugtooda ku kala calaf qaadi doona. haddii aynu milacsano gruupka B waxaa ku wada jira gobolada Sanaag, Daadmareer, Saaxil iyo Xaysimo. gruupkan ayaana u muuqda mid madaxa la isku wada jiro. kooxuhu waxay isku hirdiyi doonaan kulanka saddexaad ee baaqiga. Daadmareer ayaa hogaaminaya gruupkan waxaanu leeyahay 4 dhibcood. sidaas oo ay tahayna imtixaanka ugu weyn waxa uu ka qabsan doonaa gobolka Sanaag halka gobolka Sanaag iyo Xaysimo ay leeyihiin 3 dhibcood. gobolka Saaxil ayaa leh 1 dhibic gruupkan uguna hooseeya. Sanaag waxay la ciyaari doonaan Daadmareer halkaas oo laga rabo inay badiyaan. Saaxil oo ugu rajo yarna waxa ay waajihi doontaa gobolka laga yaaban yahay ee fardaha noqday ee Xaysimo. mid kastaana waxa uu rabaa inuu badiyo. gruupkan ayaa la oran karaa waa gruupka dhimashada. gruupka C ayaa ah mid aan sidaa u sii adkayn waxaana hogaaminaya oo 3 dhibcood leh xulka gobolka Awdal oo difaacanaya horyaalkan halka baran qudheedu ay leedahay 3 dhibcood. Salal ayaa halkaas wax dhibca lahayn lana ciyaari doonta gobolka Awdal. gruupkan ayaa u muuqda mid la filayo inay ka soo baxaan Awdal iyo Baran. gruupka D waxaa iska laalaada labada gobol ee Togdheer iyo Gabiley waxaana xusid mudan in gruupkan goor horeba ay ka soo baxeen gobolka Sool oo xaqiijiyay inay iska xaadiriyeen sideedamaadka wareegga ciyaaraha koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sool oo markii ugu dambeysay ka soo badisay Togdheer halka baraajo horena ay la soo galeen Gabiley. kulan oo harsan gruupkan waxaa wada ciyaari doona gobolka Togdheer iyo gobolka Gabiley waana
ciyaarta ay lugtooda kusoo bixi doonaan mid kastaaba. gobolka Gabiley ayaa waxaa ku filnaan doona inay kusoo baxaan baraate walow ay rabaan inay koowaad kaga soo baxaan. ciyaartan ayaa la filayaa inay noqoto mid xiise iyo xamaasad gaar ah u yeesha koobka gobolada. gobolada Buuhoodle, Maroodijeex, Sanaag, Xaysimo, Saaxil iyo Daadmadheer, Togdheer iyo Gabiley ayaa dhammaantood lugta saddexaad halkan dheer u geli doona guul la raadin doona si ay uga soo baxaan. si kastaba ha ahaatee ciyaaraha lugta saddexaad ayaa u muuqda kuwa xiise iyo xamaasad gooniya yeelan doona maadaama ay yihiin kulamadii lagu kala bixi lahaa. waxaana soo bixi doona 8 gobol oo keliya kuwaasoo sii wadi doona geedii socodka loogu jiro hanashada koobkan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkii maanta ee falaaqaynta koobka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. daawada haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe ha ilaabin si aad ugu xidhnaato markasta ciyaaraha iyo wararkooda.